agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Faadil Macalin Cabdullaahi ayaa shir gudoomiyay kulanka isku duwidda waxbarashada oo loogu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana kulanka looga hadlayay arrimo la xiriira iskuulada ay maamusho wasaaradda waxbarashada dowladda Koonfur Galbeed iyo macallimiinta wax ka dhiga dugsiyadaasi oo qaarkood uu ka dhamaaday mashaariicdii mushaar bixintooda wasaaradda ayaana kulankaasi diiradda ku saaraysay sidii mashruuc kale oo mushaar ah looga raadin lahaa macallimiinta wax ka dhiga iskuulada ay maamusho dowladda kulanka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada iyo maamulayaasha iskuulada ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warfideenka la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed keeko oo 28 bilo maalin arbaace may ni suurto gashay in magaalada Baydhabo ka furna shir oo lanku hadalow macallimiin mashruuc walban noo caawiyay oo mashruucaas oo ka dhigahay transition kaas oo guud ahaan bulshada ka wargeliyaan oo inay macallimiintaas hayaan macallimiinkii waana muddadaas mashruuc u socdayna oo si qoto dheer arday badan Koonfur Galbeed kumada wal habaran coordination kaas ama kulankaas may diiradda ka saaranay oo kuwada kulmaan baxda waxbarashada guud ahaan maamulayaashii guddiga iskuulada iyo qaar kumid macallimiintaas oo mashruucaas ay horahan taabigeliyay kulankan mayba diiradda ka saaran doonaa iyo oo fursadaha iyo caqabadaha iyo casharadii la ku baraday intii oo mashruucan socday maymna aan kuma hadliyaanahay mashruucaas partneradii ama World Bank oo noocawi muddadan oo mashruuc waxa socday si kala mayba fareen ka diraanahay dawladda federaalka iyo guud ahaan dadku ku shaqeeya baxda waxbarashada in macallimiintaasay wali dawladda Koonfur Galbeed baahanta waana qaybo kumid ayagna dadkii oo imtixaanaadkii hadda la qaaday macallinimo qayb ku hayaan baahana in la tixgeliyo waana suurtagal in waxbarashadii iyo goobihii hore ku shaqeeyaan hore sii wadaan ayban rajaynahay in inka kooyna waxbarashada socod iyo guud ahaan hawlihii muhiimka ah oo dawladda Koonfur Galbeed iyo gobolka eedayadan ma santin